عدل كون نسيه لقتها قعيدو عارفي يا وفادو يفتكي عديدو عدكميدة جركيدو عيشوني kusoo dhawaada Puntland TV faraciisa magaalada Melbourne ee dalka Australia waa barnaamijkeennii astaan horumar oo caawa uu marti noogu yahay Dr. Aydruus Muuse Faarax. Dr. Aydruus Muuse Faarax waa dhakhtar ama khabiir ku takhasusay dhinaca lafaha. Dr. Aydruus wuxuu ka soo shaqeeyay wadamo badan oo waxna ku bartay kana soo shaqeeyay. Dr. Aydruus wuxuu ka soo shaqeeyay wadamo badan oo ay ugu horeyso Soomaaliya, South Africa, Canada, New Zealand iyo dalka Australia oo hadda ka yahay khabiir dhinaca lafaha ama la taliye. Dr. Aydruus waxa uu ku soo qaatay aqoontiisa meelo badan. Isaga ayaan marka ka codsanayaa inuu noo soo koobo meelihii wax ku soo bartay iyo waliba meelaha uu ka soo shaqeeyay. Dr. Aydruus ku soo dhawow Puntland TV studiogiisa Melbourne. السلام عليكم ودوهي عبدي وانا كمان مهد علينا يا مرتقات كادي في السي إن كلا سوق يبقلو برنامج كاستان هرمر هدي أن كجواب سؤال شيء عادي ودي سي هاي تاريخ نولد كيجا ولي بالله حريرة ميلها وكسو برتي يو ميلها كسو شقي أنا مركو هروحنا هدات كي نسيب كل شيء إني كقلن جبيان كلية دي عفمات كسوماليا وقت هراء نسيب هناك واجس وحليقة إيران هي كالية بروفيسور وها عن كم بدها دتكي لو تلقى إن دبد الله درو ويصوبرتن علمي لفها جامعة دي وحنكها أسيستنت دور سنة كبعد نسيب درو واحد عليه قبتي يو دجالة دي سكي أهلي كدعي ودنا كأنه هويو تاس وحي كلفتي إن قحو waxaan imi wadanka South Africa magaalada Johannesburg kun isgaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii waxaan waagaas u fariistay imtixaan laga qaaday dadka ajaanibta ah ee raba inay ka shaqeeyaan wadankaas imtixaankaas markaan ku gudbay waxaan nasiib u helay inaan ka shaqeeyo cusbitaalka u weyn ee Johannesburg ee South Africa oo ahaa cusbitaal wax lagu barto cilmiga lafaha nasiib wanaag takhasus ayaan ka helay wadankaas waxaan ka qalin jabiyay oo ka qaatay shahaadada u sarreysay cilmiga lafaha jaamacad Witwatersrand University yiraahdo oo ku taalo South Africa sanadku markuu ahaa 1998 ka bacdi waxaan u tagay cilmi dheeraad ah wadanka Canada magaalada Toronto waxaan ka soo qaatay iyadana shahaado University of Toronto oo aan ku soo sameeyay wax loo yaqaan fellowship of arthroplasty and arthroscopic surgery oo ah cilmiga bedelaada miskaha iyo jilbada markay dadku dhamaadaan waa la bedelaa marka cilmigaas aan takhasus gaar ah ku soo qaato qaliimada lagu hago adoo aad maartay dalool inta yar la sameeyo aad ka daawanayso sida TV oo kale ka bacdi waxaan ku soo noqday South Africa sanadku markuu ahaa 2001 wax yar ka bacdin waxaan soo wareegay wadanka New Zealand oo aan 2002 imi wadanka New Zealand waxaan ka shaqeeyay from 2002 2002 ilaa iyo 2013 oo ah muddo 11 sano ayaan ka shaqeynayay wadanka New Zealand markii la gaaray 2014 waxaan soo wareegay wadanka Australia oo hadda aan kula joogo magaalada Lila Shepparton oo ka tirsan state Victoria marka waa kaas muddo badan oo aad adduunka martay waxaad ku noqotay Soomaaliya gaar ahaan Puntland 2003 waxaa kula socotay koox ka socotay ABC television and radio oo kaasoo duubay barnaamij badan oo adduunka laga fursaday runtii ahaa mid aad iyo aad dadka Soomaalida oo dhan u taabtay wixii aad halka kala soo kulantay haddana waxaad ku noqotay 2014 ujeedka safarkaaga labada goor muxuu ahaa waa mahadsantahay cabdi wallahi sanadkii 2003 wuxuu ahaa markii ugu horeeyay waan ku noqday dalkeena hooyo sidii uga dhacday qabti iyo dagaaladii ahliga ah ee Sokeeye waagaas aad sheegtaba waxay la socday koox ka socota TV-ga ABC waxaan tagay magaalada Boosaaso isbitaalkeeda ku yaala oo aan qaliimo ka soo sameeyay
in fact waagaas waxay ahayd wax aan aad u soo waaya aragnimo kasoo kororsaday oo aan arkay dhibka ka jira waddanka, baahida loo qabo dhakhtarka lafaha iyo sida waddankeenu ugu baahan yahay dadka anoo kala ah waddanka marka horena wax kusoo bartay kana shaqeeyay dibadaha. waagaas waddanku wuxuu ahaa waddan bilow ah oo isbitaalaadku ayeen wax badan oo layn, waddanku horumarkiisu uusan fiicnayn, baahi badan iyo dhibaatooyin badan baa ka jiray. markii dambe waan ku noqday 2014 waxaan tegay iyadoo uu meesha isbedel weyn ka jiro. isbedelkaas waxaa ah in waddankii uu dhismay, nabadii ay noqotay mid laisku halayn karo, dad badanna ay kusoo noqdeen oo aqoon-yahano ah dhulkii, waxaana ay gashay yidadiile ah in marka kane ay tahay probably mar ku habboon oo waddankiina loo noqon karo, dadkiina wax badan loo qaban karo, waayo horumar badan baa jira, dhinacyo badan la taaban karaa. Dr. Caydiruus waxaa ka mid tahay dhakhaatiirta caanka ah adigoo weliba nin dhalinyaro nasiib u yeeshay inaad wadamo reer galbeedka wax ku barato kana shaqayso. ma is leedahay waktigii Soomaaliya ama aqoontii aad korsatay aad ku celin lahayd waddankii aana kula kaftamay deyntii ma celinaysaa? والله سؤال ماشي ku jirta cabdi, waana wax anigu aan muddo ku taamayay oo wallahi sanad kasta waxaan niyadeyda isdhahaa warheedhe waxaad goobaysaan ama waqtigiinu dhamaanaya ama tii Allah idiin iman doonta adinkoo qurbo joogo meel maanta haddii aan ka tago qof kale bedelayo oo aad dalkii aad wax soo barateen aad aqoontiin u baahnaa adinkoon u faa'iideyn miyaad maaragtay tii alla idiin iman doontaa. marka waa run waxaa aad iigu jirta inaan waddankii ku noqdo aniga kaliya maaha, dad badan oo aqoon-yahana oo dhakhaatiira oo aan muddo wada hadlaynay oo aan doodaynay, waxaanu qorsheynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan waddankii loo noqdo, aqoontaydii aanu geyno, aanu ka qayb qaadano sidaan dadkayaga iyo dalkay wax u qaban lahayn. waayo haddii annaga iyo dadka nala mida ee waddankii u noqono waxna u qaban, dabcan dee cid kale oo banaanka uga imanaysaa dadkii ma jirto. annagaana u ah aqoon-yahan, annagaa wax soo baranay, marka waa igu jirtaa insha allahna waan u noqonaynaa. maadaama aad soo qaaday dhakhaatiir kale iyo sidii dhulkii loogu noqon lahaa wax looga qaban lahaa, ninka dhakhtarka ah ku nool Shepperton ama Toronto ama New York oo shaqada fiican haysta, sidee baa loo qalqaalinaya oo loo oranaya kaalayo tag oo ma garanaysaa meel yani u baahan yani dadaal badan iyo yani naftuuranimo, sidee looga dhaadhicinaya dhakhaatiirta aad ka mid tahay adigu? wallahi waa su-aal meesha ku jirta oo runtii ah arrin aan isleeyahay aan dhaliil ba ahaatee dadka hadda Soomaaliya u taliya ayna aad iyo aad sidii la rabay u wajihin. waayo أنا waxaan qabaa dadka aqoonta leh inay laba yihiin, ana aragtidayda laba weeyaan, oo dadna waa dad aqoon leh oo wax soo bartay oo wadamada dibadda ay joogaan aan camal fiican ku hayn, shaqo badan ku hayn. dadkaasu haddii ay maaragtay markii Soomaaliya ama nabad yar ka dhacdo dadka u horreeyay qadima weeyaan oo maaragtay isla markiiba waddankii dib ugu noqda. hase haatee waxaa jira group kale oo aqoon-yahano ah oo iyagu waddanka integration la sameeyay, wadamada ay degan yihiin, aad u dhexgalay, shaqooyin aad u fiican ku haysta, mushaaharo aad u fiican ka qaata. dadkaas caruur bay iskuul u dhigta, guryo dawladdu ay leeyihiin ma degana, kharashku wax walba iyaga jeebkooda ka baxsha. qofkaasu marka intuu wax alla wuxuu hayay iyo juhdigii uu soo gashay iyo aqoontii uu soo gashay iyo horumarkii uu soo gaaray intuu maalin iska dhigo diyaarad intuu iska raaco dhahay war anna waa kan, waayo haddaan shaqo ka horeyn oo maaragtay uusan mushaahar u dhigma uusan helin dabcan iska noqon mayo. waxaan anigu isleeyahay meesha dhaliishu ka jirta waxa weeyaan adduunka waxaa ka jira concept la yiraahdo maaragtay head hunting oo ah in ay dawladdu ay garanayso in waxa ugu muhiimsan horumar keenaya human resource-ka inuu yahay aqoon-yahanada. marka hadda kahor waxaan tegay Jigjiga, waxaan arkay xafiis dhan oo diaspora office la yiraahdo u furan kaliya bal inuu database ururiyo
head huntingna ku sameeya aqoon-yahanadooda oo dib ugu soo cesho marka maalindhood waxaan ka daawanayay tv-ga soomaaliya wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ah oo dhakhaatiir afrikaana oo yimi u mahad celinaya oo qalliimo ka sameeyay soomaaliya oo noqonaya waxaa maskaxdayda soo gashay warheedha wasaaradda caafimaadku maxay bal database u lahaan weyday oo ay u raadin weyday aqoon-yahanadeeda dibadda wada jooga u ururin weyday ka bacdiina ay ula soo xiriiri weyda oo dhihi weyda warheedha sidee baa dadka dalkii wax ugu qaban ka dhacan dadka marka dadka noocaas oo kale waxay u baahan yihiin in head hunting lagu sameeyo in loo yeerto in laga saacido hadday rabaan inay wadankii dib ugu noqdaan ama meelihii ka shaqayn lahaayeen loo habeeyo haddii ay kasoo tegayaan shaqadooda shaqooyinka iman lahaayeen iyo ama lagala shaqeeyo oo lala hadlo oo head hunting lagu sameeyo markaad keligaas ka socotid oo meel hadda xafiis qaraacaysid oo dhehayso sidii nin shaqo doona ma ahid oo baahi badan hayso marka xoogaa waxaa ka jirta isku xirnaan la-aan in la garto dadka wadanku u baahan yahay ee iyagu markan meelo fiican jooga laakiin wadanku uu aad ugu baahan yahay sidii dalku uu usoo heli lahaa dadka noocaas oo kale marka waa run laakiin misana iyadoo ay taasi jirto oo aanaan maantay head huntingkaas u jirin oo cidna la hadashay cidna tiraahda kaale ayan jirin baan misana anagu isla qaabnay oo waxaa jira hadda gruubo dhakhaatiiro oo hadda 5 sano u dambeysay Dubai ku kulmayay oo shirayay oo isdhahayay sidee loo soo noqon karaa dadkaas waxay joogaan Mareykanka waxay joogaan Denmark Sweden meelo fara badan marka waxa weeyaan way nagu jirtaa waana sameynaa ururkaas waana noqonaynaa insha Allah taala waxaan qabanaynaa noqosho soo qaatay 2014 markaad tagtay Soomaaliya gaar ahaan Puntland Garowe waxaa lagu soo duushay dhakhaatiir badan oo adigu ka mid tahay in aad doonaysaan inaad ka hirgelisaan isbitaal takhasus ah oo yani u gaar ah weliba ma garanaysaa takhasus gaar kala leh arrintaa bal noo faahfaahay ma hirgelaysaa ma la wadaa xaggee maraysa wallaahi arrintaasi waa waxbaa ka jira sida aan kuu sheegay oo aan ka ilaamiyeyba sanadihii u dambeeyey dad anigu aan ku jiro dhakhaatiir anigu ku jiro uu ka mid yahay doctor afqarshe oo Mareykanka jooga doctor Cabdi Faarax taano oo dhakhtar suxuya isna oo jooga Denmark iyo dhakhaatiir fara badan oo takhasusyaal kala duwan leh waxaan ku kulmeynay Dubai waxaan ka hadlaynay sidee baa u sameyn karaa isbitaal aan jiilka soo socda aan ku tababar lahayn sidaad og tahay jaamacadda Soomaaliya dadka ka baxay waxa ugu yar da'doodu 45 ilaa 50 weyn ku yar maanta dadkaasna jiilkaasna waa jiilkii garan karay in waxbarashadii bilaashka ahayd iska waxqabsada ahayd wax ku soo bartay ninka maanta 35 ka jira Soomaaliga ahi waa nin qabti iyo wixii dagaalada ka bacdi barbaaray oo wali ma garan karo waagi wax kasta bilaashka lagu soo dhigan jiray marka waxaan qabaa inuu dadkaas waliba jiilalkaas anigu ku jiro waxa ka saaran waajibaad gaar ah inay dalkii at least aqoontooda dib ugu cushaan dabcan markaan 70 gaarday annagaaba u baahan xanaano oo markaas wax ma tiri karo hadda weeyaan waqtigii sidaas anagu ka tala qaadanayno ayaan anagu waliba dhakhaatiir ka soo jeeda dhulka Puntland waxaan ku tashanay inaan aqoontayda iyo aqligayga iyo maalkayga isu ururino oo aanu ka dhisno isbitaal Puntland Garowe waxa noogu muuqatay meesha caasimadana dhexdan ah oo ninka kalkacay joogay nin boos ka joogay ninka laascaana joogaba ay ka soo gaari karaan iyo meelo kaleba waliba waxaan aaminsanahay isbitaalkaas inay ka faa'iideyn karaan Soomaalida meel kasta joogto waayo anigu waxaan ka takhasustay sida loo bedelo jilbaha iyo miskaha iyo qalimada lafaha waxaan Malaysia ku soo arkay wadamada tan India iyo Soomaaliya far badan oo halkaas u aada in laga bedelo jointska oo qalimo lagu sameeyo kharash far badan kaga baxo 20 sano u dhameeyeen waxaan ku sameeynaa wadamada reer galbeedka marka hadii aan Soomaaliya kale ugu geeyno aqoontaas marka ninkii 30,000 iyo 40,000 iyo 20,000 ku bixin jiray inuu tago wadamadaas waxaan ugu keenaynaa wadankiisa hooyo isagoo meel la aadin safar dheeraad gelin marka waxaan aad u mahad celinayaa dawladda Puntland madaxweynaha Cabdiweli Gaas iyo wali madaxweyne ku-xigeenka oo aad nooga caawiyay
nana siiyey oo noo cilaamiyey dhul oo aan dhulka hadda soo heraaray insha allah waxaan ku dadaalaynaa in dhulka dhaqso loo dhiso sidaad og tahay dhakhaatiir baa ka baxda jaamacadaha localka ee waddanka dhakhaatiir badan waxay ka timaadaa wadamada China waxaasoo dhakhaatiir waxay u baahan yihiin meel lagu tababaro oo takhasusyaad lagu siiyo marka ujeedada u weyn waa taas insha allahna waxaan rajaynaynaa si dhaqsaha badan inaan arrintaas u fulino Dr. Idris jilbaha iyo baad taabatay iyo miskaha iyo dad badan oo Soomaaliya waa saa u sheegtay waxay ka cabanayaan jilbahan iyo ma garanaysaa maxaa yani keena ma nafaqa daraa ma da'ba ma garanaysaa bal arrintaa wax yar noo faahfaahin والله horta lafaha cudurro badan baa ku dhaca Soomaalidu waxay aad u taqaanaa rheumatism bay tiraahdaa marka rheumatoid disease iyo cudurro badan oo ku dhaca kala goysyada ayaa jira oo aad u fara badan marka waxay cudurradaas ka sameeyeen yihiin arjooda u dhaxaysa lafaha meesha kala goysyada ay dhamaato taas ama da'baa dhamayn karta qofka culays weyn oo saaran baa dhamayn karta waxaa dhici karta in qofka uu ama waa hore meel ka jabay meesha kala goyska ama ka hooseysa ama ka sarreysa oo alignmentigii ama sidii lugta u toosnayd xoogaa yar qalloocatay culayska qofku uusan si equal ah oo siman uusan u saameyn kala goyskii uu dhinac marka uu saarmo culayskii markaas uu kala goyskii dhammaado arjoodii ka dhammaato waxay doontaba ahaatee cudurro fara badan iyo waxyaalo fara badan baa waxay keenaan in arjooda u dhaxaysa lafaha meelaha kala goysyada ay dhammaadaan marka hore arrintu cusub tahay dawooyin la qaataa jiro oo qofka xanuunkaas ka kaalmeynaya qaarkoodna lagu daweeyo laakiin haddii arjoodaas ay dhammaato aakhirka waxay tegaysaa in la bedelo oo marka la bedelayo maaha in lugtu dhan jilibkii dhan la bedelaye wax weeyaan dahaar baa la saaraa kaasoo kalifaya markaas qofku dib jointkiisu u fiicnaado uuna socdo Soomaali badan baan marba qaarkood waxay dhahaan waxaani wax cusub miyaa adduunka ma laga yaqaan marka waxaan dhahaa reede ma aragteen wadamada joogtaan wax dhutinaya waxaasoo dhan waa laga wada bedelay jilbaha laga bedelayo miskaha laga bedelayo saasaad u arki wada wax dhutinaya marka Soomaalidu aad iyo aad bay arrimahaas u qabaan dadkeena kala mid yihiin adduunka oo dhan way ka dhacdaa sida ogtaana maadaama aqoontii ay badatay dadku ay TV-da arkayaan dad badan ay dibadaha u soo baxeen ay arkeen dad badan oo laga bedelay oo wadankii dib ugu noqday way ku baraarugtay Soomaalidu haddii arrintaas oo arkaysa ama oday ama habar inta Malaysia loo sii wado oo qalimadaas loo sameynayo marka arrin kala jirta laakiin oo wadamada qabowga ah oo iyaduna ay lafa xanuun gaar ah oo ku dhaco iyo caruurta yarka oo vitamin D deficiency-ga ah oo marka qofku hadduu meel qabowba joogo uu dhar badan qabo qorraxda u bixin taasna dhibaatay u keentaa lafaha oo lafaha mineralization-ka iyo calcium-tii baan si fiican u gelayn taasna dhib gaar ay keentaa laakiin alcumuum lafuhu qaarna waa la daweyn karaa qaarna qalliin ay u baahan yihiin lafuhu in ay keenaan miisaan culaysa xanuun dhacay laf jabtay oo aan meesha ku aadanayn dad badan oo aan arrimahaas runtii ku dhicinin oo qurbaha jooga dhulka qabowga jooga aad bay uga cabanayaan ama Sacuudiga joogeen ama ku hoos jireen ama Kuwait ama air conditioner ku hoos jireen ama ha joogeen meelaha qurbaha oo qabow sida Mareykanka iyo Canada iyo meelaha Australia dhibkaas laftiis waa ka jira iyadoo kula ilaahay wanaagsan maxaa kula talin lahayd ugu dambeyntii dadka والله horta waxa muhiim ah horta in la garto Soomaalidu waxay ahaayeen dad reer guuraa asalkoodu markii la joogo dhulkeena hooyo raashinka ay cunaan wuxuu ahaa hilib caano qofku waa luweyn jiray socod badan baa la gali jiray raashinkan faraha badan oo iska yaala oo la cunayo ma jirin qofku markuu weynaado socodkiisuna uu yaraado wax cunada uu cuno hadduusan energy-dii uusan ku socon uusan ka bixin dabcan isaga ayay gelaysaa marka horta dhibka ugu weyn oo ka jira qurbaha oo dhinaca lafaha dhibaatada u keenay waxa ugu muhiimsan dadkii in culays fulayo oo miisaankooda weynaanayo waxaana miisaanka weynaynaya laba shay number 1 Soomaalidu maadaama ay ka yimaadeen beecadoodii oo ay baad cusub yimaadeen
ma ayan garan xaalad cusub ay soo galeen, therefore ay noloshooda wax ka bedelaan. hadduusan qofku soconayn, Soomaalidu ma socoto, ma ordayaan, marka qofkii raashinkii intii hore waa ka badan yahay, sokor badan baa la cunaa, bariis badan baa la cunaa, baasta badan baa la cunaa, qof exercise sameynayo ama gym galaya ma jirto, marka dadkii overweight bay noqdeen. haddii culaysku ay bato, kala goosyadaada waa waxa ku sida. kala gooyska kani markaa 20 jilid iyo markaa 30 jilid wuu u dul qaadan karaa, laakiin markii waqtigu 50 iyo 60 la gaaro waad weynaatid, culayskaasu jilbaha iyo especially jilbaha dhib buu ku hayaa. waxayna keenaysaa wax loo yaqaano osteoarthritis inay keento. marka waxaan kula talin lahaa marka hore qofku inuu culayskiisa ilaaliyo, marka labaadna inuu qofku socdo oo exercise uu sameeyo, waayo socodkii faraha badnaa aynu samayn jiray markaynu dhulkan hooy joogno oo geela raaci jiray oo ariga raaci jiray ma sameyno. therefore qofku waa inuu ku fekeraa in aadan intaad cuntid baabuur raacdid jiibsatid iyan caafimaad ahayn. taasa ugu muhiimsan. midda labaad oo aad ugu celcelinayo especially dumarka iyo carruurta ah, Soomaalidu dad badan baa waxay aaminsan yihiin inay qorraxda iska ilaaliyaan, iyagoo markaas muhiimadoodu tahay inay midabkooda fiirinaya, oo waxay aaminsan yihiin haddii qorraxda aadaan inay madoobaanayaan. marka oo runtii dhibka u weyni waxa weeyaan inagu dad madoobaynu nahay asal ahaan. marka haddii aynu joogno wadamadii kuleylka ahayd, qorrax badan baynu haysanay, qorraxaasna waxay ahayd qorrax enough ah oo ina ku filan oo jirkeena gelaysa oo ina ka caawinaysa korriimadeena, especially dhinaca lafaha muhiim u ah. qorraxdu waxaa laga sameeyaa vitamin D wax la yiraahdo. haddii la yimi wadamada tan qurbaha ah, waxaa arkaysaa Soomaali guryaha oo dhan daaqadaha daahyo ku xiray, daahyadaas oo aan qorraxda kusoo gelin, banaanka u bixin, carruurtoodii waxaa ku dhacaysa in lagu waqlaqlocsamaan vitamin D deficiency wax la yiraahdo. marka waxaan kula talin lahaa horta qof muhiimadda qorraxdu ay leedahay inay dadku gartaan oo ay u baahan yihiin inay qorraxda arkaan, qorraxdu ay gasho si lafahoodu inay u dhismaan, vitamin D ku filan ay u qaataan. vitamin D-du waa vitamin aad muhiim ah oo loo nisbeeyo dhibaatooyin badan. waxaa ka mid ah dadku markay ku dhahaan waa liigu dhan yahay oo meel kasta xanuunaysa, xataa waxaa loo nisbeeyaa depressionska la arko dadka ka maaragtay meel qof ku dhahayo waa wax meel laga haya ma aqaano, laakiin xanuun baa meel kasta xanuunaysa. waxaan qabaa anigu waxyaalo badan inay vitamin D laan ay sabab u tahay. marka waxaan kula talin lahaa dadku banaanka u baxaan, qorraxna arkaan, hana socdaan. barnaamijkeeni astaan horumar ee caawa aan martida noogu ahaa Dr. Caydiruus, dhakhtar ku takhasusay lafaha. inta ayaanu kusoo koobaynay. mar kale intaynu kulmayno, Cabdi Hilmi oo idin leh isma dhaafno, iyo barnaamijyada soo socda astaan horumar kala socda Puntland TV. Dr. Caydiruus aad iyo aad baa u mahadsan. adaa mudan, aad baad mahadsan. عدكون نسيه